oo qofka shaqaalaha laftigiisa ay nafsadiisa wax walba ay uga horeeyaan. Munaasabadan lagu weyneynayay xuska maalinta caalamiga ah ee badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ururka xirfadlayaasha badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada ee Iswashba ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada xuska maalintan caalamiga ah ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya, golaha midnayaasha caafimaadka qaranka, madaxda ururka xirfadlayaasha badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada ee Iswashba, dhaqaatiir, khubaro, hay'ado caalami ah iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed. Xuska maalintan caalamiga ah ayaa waxaa la iska wacyigeliyaa sare u qaadista badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada iyo shaqaalaha si loo ilaaliyo fayadhowrka goobta lagu shaqeynayo iyo shaqaalaha. Ugu horeyn, munaasabadan waxaa ka hadlay madaxa ugu sareeya ururka Iswashba, Dr. Umar Daahir, waxaana uu ka hadlay muhiimadda xuska maalintan. oo xusida maalinta badqabka adduunka waa barnaamij tafaraad oo muddo 3 bilood aan qabanayno. alxamdulillah waa ku mahadsantihiin inay noo hirgasho inaan xusno maalinta badqabka adduunka. saddexda wadan aan soo sheegnay associationada way qabanayaan, maanta ay qabteen qaarna caawa ay qabanayaan, anagana waa qabanay. Iswashba intay jirtay dabcan hadda 3 bilood aan jirnaa, maxay noo qabsoon waa muhiim inuu fahanno. Iswashba waqtiga ay jirto haddana waxaan bixinay juhdi badan. Number 1 waxaan diiwaan gelinay horta Iswashba wasaaradda ay maxbuudaan ka diiwaan gelin, yani registered waa maadaama East African Community aan noqonayno waa inaan diiwaan gelin ka haysanaa wasaaradda. Number 2 maxay noo qabsoomay, waxaan dhisnay ama aasaasnay official website ee Iswashba oo hadda active ah oo shaqeynayo. Dr. Maxamed Aways, madaxa badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa madaxda Iswashba wuxuu ku bogaadiyay kaalintooda ku aadan xuska maalintan, waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo ilaaliyo caafimaadka goobaha shaqada. badqabka goobaha shaqada waxaa leeyahay dhammaan isbitaalada iyo madaxda ka socda wasaaradaha iyo maxaa la yiraahdaa goobaha shaqada. waxaan leeyahay maanta maalin weyn waayo oo lagu xusaayo maalinta badqabka adduunka. maalintan oo kale waxaa lagu talagalay oo kaliya in lagu xasuusto ama la isku xasuusiyo qataraha ka jira goobaha shaqada si markaas ay tii maxaa la yiraahdaa lagu hagaajiyo nidaamyada markaas ama intii sano lagu jiray dhibaatada maxaa la yiraahdaa badqabka ama shaqaalaha markaas ka shaqeeya goobaha shaqada dhibaatada ay inta badan saameyso, haday tahay biological hazard, haday tahay chemical hazard, haday tahay psychological hazard, haday tahay environmental hazard. waxyaabahaas oo dhan waxay ka dhacaan goobaha shaqada. Dr. Abdirasaaq Xasan, xogayaha golaha midnayaasha caafimaadka qaranka, ayaa waxa uu sheegay ilaalinta fayadhowrka goobaha shaqada ay tahay waajib si looga hortago dhibaatooyin caafimaad oo ka dhasha goobaha shaqada. maalintan guud ayadana aan shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan aan u hambaliyeeyo. waa maalin mudan in la xuso because sida aad ogtihiin safety-ga shaqaalaha waa waxyaalo muhiim ah. annaga golaha midnayaasha caafimaadka qaranka sida la socotaan waxa weeye waxaan regulation u sameynaa dhowr qaybood. waxaa ka mid ah midnalaha caafimaadka ee naga rajisgaraysan, naga diiwaan gashan, laysanka haysta in uu noqdo mihnadla dhowra badbaadada bulshada oo dhan. intay socotay munaasabada xuska maalinta caalamiga ah ee badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay dad cilmiyeed ku saabsan horumarinta badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada, taasi oo ay ka soo muuqdeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiir Soomaaliyeed. waxaana xubnaha dad cilmiyeedkan ka qayb galay ay isdul istaageen sida loo horumarin karo caafimaadka goobaha shaqada. waxa ugu muhiimsan oo mar walba in focuska ugu badan la saaro ay tahay waxa waaye in shaqaalaha la wacyigeliyo oo uu yaqaano xaqiisa oo uu yaqaano ahmiyadda ay leedahay inuu nafsadiisa ilaaliyo. marka koowaad markaas kadib ay imaanayso inuu bukaanka ilaaliyo, bukaanka dadka la joogana uu ilaaliyo. maalinta caalamiga ah ee badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada dunida dhan waxaa laga xusaa 20 bisha Abriil sanad walba,
waana markii ugu horeysay maalintan caalamiga ah lagu xuso Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.